عربا ما تينا تفافلو قلف كي علادات إن مكي شيادين لغو قاضي معاها كيي الكوس مريا سفرك حسن شيخ محمود أو كنت فرمها أنو قال الكجار بانا هاي بريهان ومشغول سناي هؤلاء الدون بالحربين يجي سمعنا أنا ناركن عربا ما تي intii karaankayga ah dagaalkii nimankii qawaariijta lagula jiro hakad galay sababaha hakiyay tagitaanka xasan sheekh maxamuud oo gobolada ama furimaha dagaalku ka socdo oo ku tagay labadaas arrimood ayaa rabaa inaan muuqaalkayga ku tafaafulo soo dhawaada waxaan si sharaf leh kaga codsanayaa intaanan gelin tafaafulkayga barnaamijkan inaad sii shargarayso asxaabtaada la wadaagtid intaasu adiga way kuu fududahay inaad shargaraysid anigana waa faa'iidadayda haddii aan ku bilaabo dagaalkii nimanka qawaariijta lagula jiray maxaa hakad galiyay anigu dagaalkaanu markuu bilaabanayay ayaan muuqaal uga hadla arrinkaas waxaan idiin sheegay inay jiraan dagaalka dad dawladda ku jira ama ninka la yiraahdo madaxweynayaal maamul goboleedyo ah oo dagaalkan ah raali ka ahayn oo xagal daacinaya adigaan ku weydiinaa markasta waxaad aragtaa macaawisley iyo gorgor iyo haraamcad dagaal la gelaya nimanka shayaadiinta waxaad kaloo aragtaa xildhibaanada dawladda federaalka kamid ah oo furmaha ama jiidda hore jooga sida Sambaloolshe iyo Jaafar iyo raggaasoo joogaad aragtaa maxaad u arki weyday gobolka meesha dagaalku ka socdo madaxweynaha xukuma maamul goboleedkaas oo dagaalka ka hadlaya oo dhiiri gelinaya in qoorta inta la soo qabta hadal la yiraahdo maahane asagoo shirka qabanaya guluf ku baaqaya dagaalka hala qaada dhahaya dadka dagaalka wada dhiiri gelinaya horta ma aragtadu ama qorqor ahaato ama caliguudla waa ahaato igada maalin qoorta laga soo qabtay oo xasan sheekh maxamuud inta soo qabtay ama xildhibaan soo qabtay hada la yiri ma aragtay nimankaasu ayagoo u bareeraya oo dhahaya dagaalka toos loo qaado waa maya farba u laaban macaada leh taa bedelkeeda meeshii la qabto ayay intay telefoon ka daba tiraan iyay wacdaan ka soo baxa waxaan rabaa markii inaan idin xaqiijiyo xasan sheekh maxamuud oo hadda ah madaxweynaha Soomaaliya meelo badan oo ku xun yahay waa jira laakiin dhika dagaalka nimanka shayaadiinta lagu qaadayo dhabow ka yahay wadada uu maray haba qaldanaato laakiin halkan waxa iga muuqda asaga dagaalku inuu daacad ka yahay inuu ka go'an yahay nimanka shayaadiinta la dagaalamo laakiin dad badana jira oo dagaalka xagal daacinaya sida ogtiinba madaxweyne kaste la taliyo u leeyahay anigu waxaan sheegaa inta badan madaxdu ma xuma dadka ay la taliyayaasha ka dhiganayaan ayaa aad u xun xasan dagaalkan waa ka go'an tahay laakiin waa nin gacan ku samaysa dad baa gacanta ku haya waliba qaasatan ree cadaada u taliya ninkan dagaalka waxaa bilaabay al-shabaab lagula jiray ree hiiraan baa bilaabay madaxweynuhu markuu baxayay waxay sharafta iyo karaamadu ahayd dagaalku meesha uu ka soo bilowday inuu socdaalka ka bilaabo cadaado ka bilaabay Soomaaliya oo dhan waxay og tahay madaxweynaha inuu hadduu doonayo xitaa suuliga inuu galo inuu ka amar qaadanayo reer cadaado iyo suuliga ma galaa gal haday dhaan waa galayaan al-cadaala iyo raggaas buu ka amar qaataa sharaf iyo karaamo maahan reer beledweynena ma istaahilaan waxaas waa yasmay tahay dadkii dagaalka bilaabay ayaga lagu daysaday maanta gulufkan socda dadkii iba furay ayaga inaad ag martid oo meel kale ka soo bilowdid qoday iyo xaraday horta waa sharaf darro mana istaahilaan arrinkaas nimanka reer hiiraan la yiraahdo arrinka anagoo Soomaaliya xaal marin ka siinayna anaga idin garab taagan gurgurtiyo wuxuu wato iska daaya sharaftu waxay aad ninkaasu inuu halka socdaalka ka soo bilaabo kadibna uu halka cadaada ku xijiyo qoshiye arrinkaas mamduuciga kamid maahan ina ka baxana dooni ma waxaan soo laabanayaa marka dad waxaa jira dawladda federaalka ku jira ee dagaalkan oo sadabka ahayn sabab bay marka wataan iyagu qorqor iyo cali guudlaawe iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe iyo lafta gareen maamul goboleedyadoo dhan dagaalkan raali kama aha sababta waxay diidan yihiin qaabka dagaalkan loo bilaabay wadada dagaalkan loo bilaabay xasan dagaalka hadda bilowday waa isku dhaxyaacsan system male saabu isku dhaxyaacaya waa sababtoo ah intaasoo gacmood baa ku dhex jirta madaxweynuhu xor ma aha asagu kaliya go'aanka male saanba wuxuu iskugu qasan yihiin
ciidan madciida ka amar qaadanaya ma yaqaanaan qaar baqaar ka amar qaadanayaan xildhibaanadu waa iska socdaan waxa dhan isku dhexyaac baa ka muuqda arrinka marka waxaan dhihi lahaa xasan sheekh maxamuud gadaal intoo lagu laabatid maanta adaa madaxweynaha sharaftaada iyo karaamadaada inta ilaadid awood madaxweyne adeegsatid dagaalkan si dhaba oo dowladeed u wajah si dowladnimo u wajah si ay ugu midoobaan maamul goboleedyadu lafta gareen waa diiday ninka wani wadaniyo horta lafta gareen ninka la yiraahdo maanta ay barta lafta gareen madaxweynayaasha maanta jira ninka ugu wadanisan way waa diiday dagaalkan anigu gali maayo gadaalan ka ogaad doontaan wiigaga soo socda arrinka soo bixi doona xasan waa maamul goboleedyadii oo maray dagaalku ka socday xamar buu ku laaban doonaa wuxuu iskugu wici doonaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada iskugu wici doonaa wiigaga soo socda ayay xamar ku shiri doonaan markaas runta ogaad doontaan dagaalka qaabka loo wajahay maamul goboleedyada raalli kama aha arrinkaas halkaas baan uga gudbayaa dowladda xasan sheekh maxamuud waxaa dadku sheegayaan inay tahay dowlad aad u anshax xun caddaynteeduna waxay tahay waxaan idiin soo boostigareeyey madaxweynaha oo ninka la yidhahdo romantic jilaya oo islaama ninka la yidhahdo gacanta ku dheggan oo sidii ciyaalka xaafadda ula dhaqmaya islaamahaas waa idiin soo boostigareeyey muuqaal iyo codna waa ka diyaariyey caddayn kalaan idiin hayaa guddoomiye degmo waxaa loo magacaabay ninka qoraalada nuucaasa soo qora ee dayow la yidhaah ee gabdhaha cawradooda ka sheekay jiray hadda ka hor video muuqaal ka duubay ee soo qarxiyey naciimo qorone gabadha la dhihi jiray ninkii soo qarxiyey weeye rikaatay jiray weeye ninkii nuucaasaay maanta guddoomiye degmaa loo doortay bal hadda fiirso xiitaa shahaado dugsi hoose ma haysto iska daami dugsi sare qabyaaladu beerka iyo wadnahay jartay yow wax u qabanayaa ninkaasu marka ma soomaalinima ma qabyaaladba ma saqarjaannima dowladdan ma dadkii saqarjaaminta ku aruuray waxaan dhegaystay arrinkaas cabdulqaadir boosoo ka hadlaya oo dhahaya qofka afkaartiisa iyo xilka loo magacaabo kala saara arrinku inuu saas ahayan u malaynaa muuqaalka maalin horaan dhegaystay waxaan rabaa marka inaan sheego waa ishuwan yihiin arrinkaasu cabdulqaadir boosow waxba ninkaan ha u ceeb qarin ceebtiisa baqarsooro badhaankay taallaa qofka xilka loo magacaabay waxa uu yahay ayuu bulshada ula tegayaa hadduu nin wanaagsan ahay bulshada loo magacaabay waa wanaajinayaa saqarjaan hadduu ahay bulshada loo magacaabay saqarjaamin buu ka dhigayaa bal hadda u fiirso sababtan kuu sheegayaa wax adiga ceeb kula ah aan saqarjaanka ahayn mas-uulka ayaa isaga caadi la ah inuu sameeyo waxaa caadiya inuu yidhaahdo hoteello lagu tuntaa laga furo meeshaas waxaa caadiya inuu yidhaahdo qamriga iyo xashiishka lagu dhex caba magaalada degmada loo magacaabay waxaa la sheegaa deyow dadka maqaadaraadka aad u isticmaal inuu yahay xagintaa waan kaga dhacayaa mar kasta oo qoraal nuucaasoo kalea soo qorayo oo gabdhaha soo qarxinayo ma fayooba waa cabsan yahay ninkii saas ahay maantay degma waxaa looga dhigay guddoomiye dowladda xasan sheekh maxamuud marka kuwa horena waa ku tuhmayna nuucaasoo kale ah ma dowladdii dowlad soomaaliyeed soo marta tii ugaasha xumeed ma taa ninka soo qoraya heblaayo waa siigaysataa afkiisu karayo ma mas-uul ba adaan ku weydiinayaa afkiisu ninka nuuca hadalkaasa soo karayo ma mas-uul ba waan horta dulqaad badan baan sameeyey qoraalkan xilliga soo qoro waa u jeedaan maalin kastana ninkaas 5 boost 6 boostiyo soo boosti galay jiray maanta shalay waqti baan intaan galiyay baasaan u daba socdaan waxaan tagay maalinta baydkiisa soo sameeyay waa toosh u soo qoro waad aragtaan hebel afro gabadhii la dhigi jiray fanaanada ahaydna waad aragtaan ninka saasa ayaa maanta guddoomiye waa laga dhigay degmo dad buu xil u hayaa dad buu mas'uuliyadooda qaaday ceebta intaa la eg dowladda xasan sheekh maxamuud dhexda ka taagan annagu haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed xasan adiga ayaan dulqaad kugu haynaa adiga ayaan dulqaad kugu dhahnaa madaxweyne والله دبين بنودا حسن شيخ محمود مركان ليا مدحوينها الدولة فدرالكا هذا الكوا اسكسو الريحيا سببته وادي لا هينا نيراهدو سببته ما يستاهلوا نينكا دادك النوع قاسا خلالك مقعابيا كوي كوريان اوغين يدها يا سغاشني كودي الله مقعابيا خلالك مقعابيا سقر جامين تيو دنقب يالا ديستيالكا خلالك كتريي كوا دا تريي ايا مدحوينه دهينا
qasab bay nagu talaakay meelan uga galgalana male qaaban ku diidna male ilaahay baa qoorta noo geliyay gabagii ma wada haayo laakiin inta in yar baan ka haya cunug yarna waa ahay xilligaana damiya la joogo cayaar gudka la tagi jiray dhaantada la iska tuma jiray dhaantayahana waa hada wadankii markaa joogay arooska aan tago iyo meesha aan tago arooska ka qayb galo wuxuu ahaa aroos sheegan ninkii kaba yar ahay yimid aan liitir arooskaas hadda baani maayo dad yaqaana haday joogan halka hoose ku soo qoraan waxaan rabaa marka inaad ii sheego basiir baa la dhihi jiray ninka nin abwaan oo qatar oo ahaa laakiin abwaaniinta la boombuuriyo oo damiidiyaha la geliyo maana baadiyiisu iska jooga gabayga marka waxaan ka xasuustaa xigmad baa ku jirtee faysal qarax maxaa kugu qabto qoorta kuu geliyey waxay tiri allah igu qabto qoorta ii geliyey waxaan idhi maxaa kugu qabtay soo qasaas uma tihid waxay tiri anoo qooqan baan wiil qatara mooday gabaygu saas buu dhacayay markii ereygii ugu dambeeyey ayaan ka soo qaadanayaa anoo qooqan baan wiil qatara moodo wey dowladda maanta jirta ee xasan sheekh maxamuud ee nuuca u dhaqmayda ee dhika la yidhaha waddankii iibinaysa oo aynu ognahay maantay dadka shacabka waxyaalo badan aysan ogayna waddanka ka jira maantay waxaad la socotiin boosaaso ayaa dhawood waxaa laga soo dejiyey dabaabaadyaa laga soo dejiyey hubbaa laga soo dejiyey ciidamo shisheeyaa laga soo dejiyey israa'iiliyiin baa laga soo dejiyey bal hadda u fiirso waad wada dhegaysateen war raqaba ciise male idin tafaafulima arrinkaas laakiin boosaaso rag israa'iiliyiina iyo hubkooda iyo imaaraatisaa laga soo dejiyey bal hadda u fiirso xasan anigu xasan waa la yaabaa xasan anigu qodobka aan kala yaaba waxay tahay ninku horta isagu shisheeye jecelaa imaaraatis xasan waxay ku samayda waa in baaritaan lagu sameeyaa anigu xasan imaaraatis waxay ku samaysay dowladda imaaraadka xasan faraha ay ka haysa nuuc ay tahay waa in la baaraa wuu jiracsan yahay sidee uga yeelaa israa'iil oo yuhuuda iyo imaaraatis la socda dhul soomaaliyeed inay ciidamo iyo hub keensadaan oy ku noolaadaan xasan sheekh maxamuud soo uga yeelaa ninkan madaxweynaha imaaraatis miyaa hal mar abayuusay anigu waa yaabanahay ma ninkaas baa ninka fara ka haya waxaan maqli jiray heblaayo muuqaal baa laga duubay oo lagu rikaateeyey xasan ma muuqaal baa laga hayaa hadda waxaanu aqli ma ahan wax ummadda soomaaliya dul qaadan karta ma ahan see aniga dhulkayga yuhuud ugu noolaataa sideen u yeelaa dhulkayga yuhuud askara say u soo degtaa sideen u yeelaa waxaynu ognahay oo magaalada muqdisho ka socda inay ciidamo qoranayaan oo la qarinayo imaaraatis in ninka la yidhaha masar ciidamo la qarinayo ay qoranayaan waxaasoo dhan maxaa isaga qoorta u geliyey ninkaa horta xasan la yidhaah inuu saa yidhaah horta dabeecad ka ah bal horta muuqaalkan ila daawada horta gadaalaan ka tafaafulaya kanaan ku soo khatimaa ila daawada xasan wuxuu u tegey niman sunna wal jamaaca oo digrinaya oo ninka la yidhaha siyaaro ku jira sidii uu dhahbaayada gacantoo kala laabtay war laga tagay ruuxa ninkaasi tuurayo ma China iyo Hindiya wax u galay ninka saan iska dhahaya asagu ma wuxuu moodaa inuu war ninkan war ku fogaa maaye ilaahay baa nagu qabtee u duceeyo mun ilaahay inuu soo hadeeyo wax kale oo dhigi karna male war wax uga qaadi karno awood malihin laakiin ilaahay inta yartaa oo madaxweynaha yahay mid wax qabta Allah ka dhigo ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu duceynayaa inay gartaan wanaagga inay gartaan qofka wadaniga inay gartaan dad baa xasan maanta taageeraya aqligiisa diin la wiistay kaas ma fiyooba wallahi ninka xasan taageeraya maanta inuu soo fiyoobeen handicap weyn ninka xasan taageeraya maxaa lagu taageeraa ma nin raba dhulkeygii raba inuu yuhuud iyo imaaraatis iyo carab iyo jinni keeno ayaa taageeraa maxaan ku taageeraa aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar raba muuqaalkii inaan ku fogaado muuqaalkayga bilow ilaa dhammaad haddaad daawanaysay waxaan si xushmada ku jirta kaaga codsanayaa dardaarankaan dadka uu qusay iga gaarsii 5 farood iyo calaacal muuqaalka saara warkalkaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin